xeebtan iyo xaafadahan qadiimiga ah waa meelaha ilqabadka leh ee ay leedahay caasimadda waana cirif kale oo ay ka xiriiraan gobolka Shabeellada Hoose Ceelhuur Abaydhaxan xeebta Jasiira iyo magacyo kale oo aan kala xadeysnin ay leedahay halkan waana goob dalxiis oo muhiim u ah dadka ku dhaqan caasimadda qurbo joogta iyo marti sharafka kale ee Soomaaliya shaqada iyo booqashada wada joogo nasiib xumo waxa ay gacanta ugu jirtay muddo Maleeshiya beeleed markii dambe u xuub siibtay dhaca dadka iyo dagaal dhexdooda ah taasi oo halis gelisay boqolaalka dalxiise ee u damaasha taga dhulkan quruxda badan maamulka gobolka iyo taliska booliiska gobolka Banaadir oo ka jawaabaya cabashada dalxiisayaasha sidoo kalena ku soo baxay shaqaaqa dhex martay Maleeshiyadii isbaarada u tiilay halkan ayaa xasilinteeda u wakiishay ciidamada gaarka ah ee Haramcad waxay halkan ka sifeeyeen Maleeshiyadii dadka ku dhibi jirtay halkan intaas kadib si loo hubiyo xasilinta deegaanka laguna xaqiijiyo gacanta ciidamada hab sharciyeysan oo la isla ogol yahay ayaa maanta waxa ay ku booqatay maxkamadda ciidamada qalabka sida fariisimaha ay la wareegeen ciidamada gaarka ee Haramcad waxa la faray ciidamada inay ilaaliyaan xuquuqda dadka ay leeyihiin oo ay kala siman yihiin dunida kale halkeena markii laga hadlaayane hantida koowaad iyo labaad iyo saddexaad uu leeyahay waa askariga hanti askariga ka weyn oo dalkeena maanta uu leeyahay malaha askariga marka uu si wanaagsan u shaqeeyaa waxa riyooyinka hadda ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxay isku bedelayaan xuquuq waa ogtihiin qofka Soomaaliga hadda wuxuu ku riyoodaa inuu shaqo helo inuu amni helo inuu guri helo waxa soo dhan dunida kale xuquuqi ka yihiin arintaasi oo hadda riyooyinka u ah dadka dhalinyarada ah dadka xuquuqda u bedeli karo waxa waaye ciidankeena qalabka sida waaye saas darteed يعني waan taastan keentay shaqooyinka adag aad deegaankan ka qabateen qayb kamid ah qaybahaas waaye waan la soconay oo cabashooyinkii wayna soo gaareen halkan ka jiray waana ku mahadsantiin sidaad u xaliseen sidoo kale waxa la faray ciidamada inaysan ahayn 3 qof kaliya dadka halkan dibta ka geystay badalkeedsa laga rabo ciidanka inay baaraan xaafadaha si loo mariyo sharciga kuwa gacantooda soo galo ku amrayna naguma filna 3 qofood ee la xiriir naguma filna 3 qofood ma ahayn dadka deegaankan dhibay 3 ma ahayn dadka ku dagaalamayna 3 qofood ma ahayn waa in loogu taga xaafadaha dadka hubeysan ee jooga ee ka qayb qaatay dhibaatadaani waa in guryahooda loogu taga ee la soo wada qabtaa ee la horgeeyo cadaaladda si ay u dhadhamiyaan dadka dhibaatada ay u geysteen iyo dhacay iyo cabsida ay dadka badeen si ay jawaabteeda iyo ciqaabteeda ay u maraan waxaan rabnaa dadka deegaanka inay kala shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo halkan yimid gaar ahaan ciidankan gaarka oo mataqaana federaalka ah oo yimid halkaani inay kala shaqeeyaan dadka dhibaatada ka geysan jira meeshan maxkamadda ciidamada ayaa ciidamadan ku amartay in loo ogol yahay kaliya tallaabo sharci oo aysan shaqadooda la xiriirin rabitaankooda nacayb iyo jacaylba waxaan rabnaa oo iyadana aan si gaar ah rabnaa inaan u sheegno ciidamadu qalabka sida inay ka fogaadaan israsaaseynta qofka la yaqaan ciidanka dhexdooda gaar tusaale qof ciidan ah oo dawladda ka tirsan oo hubeysan oo hub dawladeed wato qof kale inuu xabad ku ridaa maaha mar hadaa hubisa cidda uu yahay kaliya waxa ku filan in magaciisa iyo maxaa la yiraahdaa meesha uu ka tirsan yahay aad loo qoraa hay'adaha sharciga iyaga tilaab ka qaadaya ma ahana ina asagana xabad lagu furo asna oo xabad fura dhibaatooyinkaasi maxaa la yiraahdaa inay meesha ka baxaan isbaar xirfadaysan oo dadka xitaa loogu sheegay tabarucaad dadweyne ayaa halkan ooli jirtay sida mashruuca taakuleenta dhismaha jidka Jasiira Abduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho